soo dhawaada akhyaar meel kasta oo aad joogtaan marka loo yimaado wadanka Hindiya iyo Pakistan xaaladda ka dhaxaysa ee dagaalka ah daqiiqada ka dambaysa faraha ay ka sii baxaysa waxana ay ku sii dhawaanaysaa in ay xaaladdu noqoto dagaal weyn oo labada dal dhaxmara labadan dal dagaal dhaxmara waxa uu dambeysay oo xoogan waliba sanadkii 1998 haddaba wasiirka gaashaandhigga wadanka Pakistan ayaa la hadlay telefishinka CNN ninkan oo lagu magacaabo Khawaaja Maxamed Asif ayaa la weydiiyay su'aal la yaab lahayd oo u dhigay Asif wasiirka gaashaandhigga wadanka Pakistan waraysigiisa waxa uu noqday mid xasaasi ah oo waliba warbaahinta adduunka ay si weyn u xiganayso waxa wax laga weydiiyay arrimaha difaacooda waxa ay ku leeyihiin dalka lagu magacaabo China oo la leeyahay nidaamyada difaacyada cirka ee Pakistan ay diyaaradaha ku soo riday waxa siisay dawladda China taasi oo hadda reer galbeedku ay aad uga walacsan yihiin ninkan waraysigiisa xog badan ayaa laga dhaxraadiyay marka la fiiriyo waxyaabaha ay isticmaaleen ilaa iyo diyaaradihii shanta ahaa oo ay shalay soo tuureen qalabka loo isticmaalay kaalinta dawladda China ay ku lahayd jiritaanka kooxaha argagixiso oo la leeyahay Kashmir ayaa lagu soo daabulay xiriirka ka dhaxeeya Mareykanka iyo Pakistan oo bilooyinkii ugu dambeysay uu madmadow ku jiray marka wariyaha telefishinka CNN ka socday waxa uu bilaabay wasiirka gaashaandhigga wadanka Pakistan in su'aalihii ugu adkaa la hordhigo ilaa markii ugu dambeysay ay gaartaba waraysiga inuu aad u sii kululaado daqiiqada ka dambeysay marka la fiiriyo ninkan jawaabihiisa waxay u ekaayeen kuwa nidaamsan oo qangaarnimo diblomaasiyadeed ay ka muuqatay waxa uu si gaar ah u weeraray dawladda Hindiya waxa la yiri loolankan idin dhaxeeya idinka iyo Hindiya ma laga yaabaa inuu noqdo siraac ballaarta oo si xoogaysta oo maalinta ka dambeysay isbedel uu ku iman karo wuxuu yiri dabcan dawladda Pakistan waxay ku dhawaaqday una diyaar garoobaysaa buu yiri dagaal dhameystiran oo aan la galno dalka aynu jaarka nahay gardarrada inagu soo doontay Hindiya gardarrada cidda wadama hayo yiri Pakistan laakiin annaga gacmaha isma saaran doono oo awood inagu filan ayaan haysanaa sida ka muuqata warbaahinta waa mid kamid ah qalabka lagu dagaalamay adduunka isla markaana xogaha furan lagu raadiyo oo ay tahay meelaha xogaha militariga laga helo iyo waliba xogaha dhinaca sirdoonka lagu dhista wadaha wadamadu ay leeyihiin meelahaas waxa kamid ah hanaanka dawladaha u fakaraan in laga ogaado waxyaabaha ugu badan ee la raadinayo waxay tahay Pakistan marka ugu horeysay inay diido in xal diblomaasiya aanay ogolayn Khawaaja waxa uu ku dhawaaqay dawladdiisu inay sheegtay xal kasta oo diblomaasiya inay diyaar u yihiin laakiin iyagu aanay weerar ahayn oo ay difaac ku jiraan cid kasta oo soo weerartay cadow kasta oo istiyaarinayana ay qasab u tahay in ciidamada Pakistan ee hadda diyaarka ah ay burburiyaan waraysiga waa fogaaday ugu dambeyn waxa la isla gaaray xogta la xiriirta Pakistan iyo dalka la yiraahdo Ruushka iyo Iran iyo dalkan Pakistan inay isku xiran yihiin oo wasiirku wuxuu ka jawaabay taas inay tahay sir wadankiisa uu leeyahay aysan ahayn warbaahinta inuu wax ka weydiiso oo uga jawaabo eedeymaha dhinaca Hindiya ee ku aadan Pakistan inay hayso kooxaha argagixiso ayaa la weydiiyay wuxuu taa uga jawaabay qalabkiina soo qaata haddii aad tihiin warbaahinta reer galbeedka innaga ayaa idacsuumayna imaada wadankeena waxaan idin siin doonaa waraysiyo si iyaga la mid ah u taga ee waraysta waxay idin sheegaan xaqiiqada ogaada ayuu ku yiri Pakistan weligeedna waxba qarin haddana ma doonaysa ayuu yiri inaan wax badan qarino marka ay doodda halkaasi gaartay ayaa loo yimid meeshii danta loo socday ee ahayd waxa la weydiiyay wadankeena ma joogta wax argagixiso ah wuxuu ku jawaabay inuu taa ma ogi inay weydiisaan ma kadibna waxa ay gabadhii tiri Khawaaja waxa tahay wasiirkii difaaca haddii aadan adiga ogaan waayo cidda ogaanaysa wuxuu ku jawaabay Pakistan ma aha hooy argagixiso doodii markii halka gaartay ayay rugtay gabadhan saxafiyada ah meel kale oo la yaab leh ayay geysay oo la isweydiinayaba waxa waraysiga halka u rari karaya Khawaaja wasiirka gaashaandhigga wadanka Pakistan waxa la weydiiyay waayadii ugu dambeysay Mareykanka hadal kulul baad u jeedisay waxa tiraadeen muddo 30 sano ayaan idinla shaqeynay ciyaar wasaqaysan oo aysan suuragal ahayn inaan sii wadno macnaheedu tahay dagaalka argagixisada inaad ka baxdeen Hindiyana waxay ugu eedeynaysaa arrintaas inaad faraha la gasheen
soo wax la isku soo qaadan kara maaha. waxa uu weydiiyay bal horta markaad ka hadashaan waxaad ka hadlaysaan oo aad nagu eedeynaysaan Osama yaa keenay ayuu yiri dalkan Pakistan iyo gobolkan hadda dagaaladu ay ka socdaan ma inaga keenay gabadhii su'aashaasi si aanan ka socoto meel ay ka marto oo ay kaga jawaabto ayay garan weysay kadib doodda way sii socotay waxana uu yiri wadankeena waxa la sheegay maaha Hindiya ayada soo xadgudubtay Mareykanka annagana hadda xiriirkeena ma xuma saaxiibo ayaynu nahay meeshaasi wax naga jiraan Hindiya ayay wax naga jiraan halkaas aynu ka doodno ayuu hawshii u raray waraysiga marka la fiiriyo marka waxa uu ahaa waraysiga ugu kulula oo ay Pakistan ka lahayd saddex arrin inay uga jawaabto kow reer galbeedka inay ka eebiso in aysan ahayn dawlad cadow ku ah Mareykanka iyo wadamada qarbiga ama reer galbeedka sida daraadeed ay tahay dawlad iyada oo isku filan oo isbadbaadinaysa halkaan ay kaga hortagto taageero kasta oo military oo dalka Hindiya ay heli lahayd iyada oo oranaysa wadan cadow ku ah reer galbeedka ayaan la dagaalamaya taasi marka dawladda Pakistan waxay rabtay waraysigan qodobkaasi inay ku soo afxirto oo ay isfurfurto isla markaana saaxiib ay la noqoto warbaahinta reer galbeedka waa qidad dagaal oo cajiib ah oo ay muhiim tahay wadamada soo koraya ee siyaasad ahaan aan qaangaarka ahayn inay wax badan ka baran karaan qodobka labaad ee meesha ku jira waxay tahay dawladda Hindiya inay beeniso dacaayada dawladda Pakistan inay beeniso dacaayada Hindiya ay iibinayso oo ku aadan Pakistan inay tahay hoyga argagixisada sida daraadeed Hindiya qatar weyn ay la dagaalamayso caalamka ay ka iibiso taana meesha ayuu ka saarayay ugu dambeyn wuxuu caalamka ka iibinayay in hanaan diblomaasiyadeed in wax lagu dhameeyo aysan diidanayn oo ay ogol yihiin hadda kaliya ay u diyaarsiin inay istifaacaan oo ay ka hortagaan cadow ku soo duulay oo qaanuunka caalamiga ah ka soo horjeeday qodob afraad ah jiri kara oo meeshan waraysiga laga dhaxli karo isla markaana qubarada wax taxliilinaya ee wax ka qoraya waraysiga Khawaja wasiirka gaashaandhigga wadanka Pakistan laga dhaxlayo waxa uu yahay in ay tilmaamaan in aysan rabin dalkan Pakistan la yiraahdo inay iyagu dagaal yihiin oo nabad darro iyo xasilooni darro adduunka ay abuurayaan qodobkan ayaa guud ahaanba waxay u muuqataa dagaalka militariga iyo diblomaasiyadda labada dhinac inay isku wadaan ilaa ay hadda mas'uuliyiinta wadanka Hindiya warbaahinta ma hortagin kama jawaabin dhalacaynta iyo eedaha dul hoganaya ee ku aadan inay weerareen saldhigyo military oo dawladda Pakistan ay leedahay laakiin mid ay uga warwareegayaan waxay tahay in saddex su'aalood oo cajiib la weydiiyo taas oo ay ku adag tahay baa la leeyahay wasiirka amuraha dibadda Hindiya iyo wasiirka gaashaandhigga Hindiya inay ka jawaabaan koow wuxuu yahay sababta ay u weerareen Pakistan oo ay hadii ay ku argagixisad doonayaan sababta saldhigyada militariga dawladda Pakistan ay u garaaceen koow labo sababta loo soo riday diyaaradii dawladda Francisco ay farsamaysay oo ay adag tahay jawaabtooda inay helaan iyo waxa ku dhacay farsamadooda iyo tiknoolajiyada maadaama ay awood ahaan Hindiya kaalinta afraad ee ciidamada adduunka ay ku jirto dagaaladana hadda ay u muuqatay inay ku fashilmaan su'aalahaasi ayaa ku adkaan karaya dawladda Hindiya inay ka jawaabto ilaa hadda laakiin Pakistan guusheedii waxay ku dartay baqo waxay leedahay fagaaraha diblomaasiyadda hadii la tagayo anigu ma diidani taas oo hadii la tago ay ku noqonayso jab dawladda Hindiya hadii aysan jawaab adag ay gaarsiin militariga wadanka Pakistan hadda xaaladdu aad ay u adag tahay dawladda waaweyn waxay doonayaan in xal la gaaro barnaamijka aqyaarta inala socota waa noo sii socon doonaa waxaanu ku eegi doonaa qaybaha kale ee soo socda soo dhawaada ayaan idin leeyahay aad